waa shantii habeenimo waa gudaha carwada alkalaastiko ee ku taala degmada Badaxaawe ee gobolka Gado waa dhalinyaro ku howlan sameynta marada afka lagu doobtay looga hortago cudurka adduunka dhan saameeyay ee coronavirus ama COVID-19 dhalinyarada iskood isku xilqaantay oo sameynayso maaskara afka lagu xirto 4,000 ilaa 5,000 si ay u gaarsiin lahaayeen bulshada ku dhaqan degmada Badaxaawe iyo degmooyinka gobolka Gado si looga hortago cudurka safmareenka ee COVID-19 mana ay suurtagelin in dhalinyaradan helaan wax dhaafsiisan marada afka lagu doobtay ay ayaga sameeyeen si ay ugu caawin lahaayeen bulshadooda maxamed cabdiqaadir xirsi toolaf oo kamid ah dhalinyarada iskood isku xilqaantay ayaa sheegay in ay u taagan yihiin badbaadinta bulshadooda xaaladda ku aadan cudurka coronavirus caawe waxaan diyaarinaynaa waqti xaadirkan waa 11 habeenimo weeye waxaan diyaarinaynaa askarahan sanka afka la gashto oo looga hortagayo cudurka coronavirus waxyaalaha looga hortago waxaa ka mid ah in gloves laga gashto nadaafadda in lagu dadaalo in maaskarahan la xirto agabkan marka isagoo dhammaystiran lama helo waa in la diyaariyaa degmada Badaxaawe ayaanu habeenimada aan ka diyaarinaynaa maaskarahan sidaad u jeedaa habeenadan oo dhan aan ku mashquulsanayn si aan uga caawino bulshada degmadan reer Badaxaawe oo aan haysanin maaskarahan si aan uga caawino inay qaataan oo ay isku ilaaliyaan saas awgeed waxaanu diyaarinay ilaa 5,000 6,000 dhowrkan habeen la soo dhaafay waa dhafreynay habeenimo si aan bulshadanada u badbaadino awgeed ilaahay baa wax badbaadiya saas awgeed bulshadanada ayaanu u dadaalinaa dadka walaalaheena waxaanu u sheegaynaa in aanan agabkan haysanin laakiin heer gobol aanu u diyaarinayno degmada oo dhan waa u diyaarinay haddana waxaanu rabnaa inaan gaarsiino ilaa gobolada oo dhan degmooyinka gobolka oo dhan gobolka Gado Garbaharey Baardheere meelahaas oo dhan ayaan delivery ku gaarsiin doonaa insha Allah taala dhalinyaradan ayaa wax taageero ka haysan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha u qaabilsan ka hortagga cudurka coronavirus Soomaaliya Libaan Maxamed Yuusuf warbaahinta Samtig Badaxaawe